Dardaaran aabe. Aabbo wanaagsan ayaa wiilkiisa waxa uu siiyey dardaarankan sida uu ula dhaqmi lahaa marka uu waayeel noqdo. Wuxuuna yiri, wiilkayga qiimaha badanow, maalin maalmaha ka mid ah, haddii Alla idmo, waxaad arki doontaa aniga oo gaboobay. Ficilada aan samaynayana kuula muuqdaan amaba ay yihiin kuwa maskaxda caadiga ah qaadan karin. Marka uu xaalkayga halkaa gaaro, fadlan waqtigaaga qayb ii hibee oo isii samirna ii yeelo si aad ii fahanto. Aabe, markaad aragto gacantaydaas xoogga badan oo gariiraysa oo cuntada aan qaato xijin kari la, markaad aragto aniga oo aan dharka si fiican u xiran karin, ha iga degdegin ee samir ii yeelo. Xusuuso dharaarihii aan ku bari jiray sida loo sameeyo waxa aan maanta anigu awoodi la ahay samayntiisa. Wiilkaygiyow, haddii aan kugula hadlo erayo aan ku soo celceliyo ama xusuusta i gabto oo iga yaraato oo aan wax hore kuugu soo celceliyo, ha iga caroon aabba, ha iga daalin. Xasuuso carruurnimadaadii iyo inta jeer ee aniguba aan kuugu celceliyey qisas iyo sheekooyin aad ku farxaysay oo aad si joogto ah iiga dooni jirtay in aan kuugu celiyo. Iga ilaali erayada naxdinta igu ah iyo inta hadalka aan hore kuu iri marka aan kuugu soo celiyo aadan afka igaga soo boodin ama aadan iga dhaxgelin si aanan u sii wadin hadalka. Aabe, haddii aanan maanta qurux badnayn, urtaydana u udgoonayn sidii waayo aad ka urin jirtay dharkayga, ha igu canaanan ee i caawi. Xusuuso yaraantaadii mararka badan ee aan isku dayi jiray in aan kaa dhigo wiil qurux badan oo udgoon, asaagiina aan ka lidan. Aabe, aniga ayaa ku soo barbaariyey, aniga ayaa ku soo edbiyey, aniga ayaa ku baray sida ay tahay in aad nolosha u wajahdo. Marka sidee maanta kaaga suurageli kartaa in aad i barto waxa ay tahay in aan sameeyo iyo waxa aysan ahayn in aan samayn ee aan ka fogaado? Aabe, ha ka daalin xusuustayda daciiftay iyo erayada ku dhawaaqistooda ugu adkaaday. Iyo haddii aad mararka qaarkood aragto aniga oo erayga aan ku oranayo cabaar ka fikiraya, waayo in aynu sheekaysanaa iminka aniga farxadda keliya ay ii leedahay waa in aynu wada joogno. Keliya waxa aan kaa baryayaa in marka aan da'daa gaaro aad isiiso waqti aan ku dhammaysto waxa aan doonayo, iyo in aad ogaato in aan weli garanayo waxa aan doonayo. Wiilkaygiiyow, maalinta aad aragto labadeydii lugood oo i qaadi kari waayey halka aan rabana i geyn waayey, ha i dhibsan ee xusuuso inta jeer ee aniguba adiga aan ku xambaaray si aan kuu gaarsiiyo halka aad rabto. Xusuuso inta jeer ee aan adiga cid kasta kaa doorbiday ee aan socodka kuu gaabiyey si aan kuu wado. Adiguna maanta ha ka qajilin, ha ka xishoonin in aad gacanta i qabato. Ogowna adiga waxaa ku sugaysa maalin aad u baahan doonto cid gacanta ku qabata hadduu Alla idmo. Wiilkaygaan jeclahayow, maanta cimriga aan joogo waa in aan geeri sugo oo keliya. Waxa aan jeclahay inta aan noolahay in aad ila joogto oo aanad igu joogsan. Marka aad xusuusato qalad ama gaabis aad iga tirsanayso, waxaad ogaataa in waxa aan doonayay uu ahaa oo keliya dantaada iyo in aad hagaagsanaato, xataa haddii ay iga qaldaneed waddadii aan u maray. Waxa ugu fiican ee aad maanta i tari karta waa in qaladyadii iga dhacay aad iga cafiso, i garab qabato, ceebtaydana asturto. Adigana waxaan Alla kaaga baryayaa dembi dhaaf iyo in uu ceebtaada asturo. Waxaadna ogaataa in maanta oo aad weynaatay welina qosolkaaga iyo dhoolla-caddayntaada ay ii farxad gelinayaan sidii ay ii farxad gelin jireen markii aad yareed oo kale. Aabe, ha iga xaaraantinimayn in aan ku ag joogo. Aabe, maalintii aad dhalatay waan ku hareer taagnaa, adiguna ila joog marka aan dhimanayo. Farriintan waa mid qusaysa wiil iyo gabar walba. Waxaa tahay qof nasiib badan haddii ay ifka kuu saaran yihiin labadaadi waalid ama midkoodba. Haddii ay dhinteen, Allaha u naxariisto. Weli waxaad haysataa fursad aad ugu ducayn karto waalidkaa.